waxaa maanta la sii daayay cafisna loo fidiyey Sadaam Xuseen Ducaale oo horay dil ugu geystay magaalada Laascaanood marxuun Maxamed Cali Hiired eedeysanaha faldambiyeedka geystay ayaa saaka isagoo qisaasan loo geeyay aabaha dhalay marxuumka dhintay goobta waxaa ku sugnaa ismada dhaqanka SSC oo ay ka mid yihiin labada isim ee hawshan khusayso waa garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale iyo sidoo kale garaad Cabdilaahi garaad Salabaan sidoo kale waxaa madasha ku sugnaa gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo hawshan door muhiim ah ka lahaa aabaha dhalay marxuumka dhintay ayaa qisaasta ka cafiyay ninka wiilkiisa dilay isagoo halkaas ay ugu duceeyeen madaxda dhaqanka SSC oo goobta ku sugnaa garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale iyo sidoo kale garaad Cabdilaahi garaad Salabaan ayaa madasha ka hadlay halkan waxaa jooga maanta waxa weeye maalin jimco ah waxaa halkan ku dhan waxgaradkii iyo culimadiinkii iyo garaadadii salaadiintii aqoon-yahanadii gudoomiyihii golaha wakiilada dadkii ka soo jeeday gobolada Sool iyo Sanaag nooc kasta ay yihiin habeen hore waxaa dhacay dil qabanno ilmaanayna oo saaxiiba oo ehelada oo isku qoysa ayaa waxa weeye dilkaasi kala gaaray Ilaahay u naxariisto ninkii dhintay haddana waxaa noo keenay oo halkan aanu xaadir ku nahay inankii waxa weeye inaadeerkii gacantiisa waxa weeye ku dilay oo magaciisa la yiraahdo Asad Xuseen Ducaale waa garanaya Xuseen Ducaale dheeg aabihii wiilka dhalay oo la yiraahdo Cali Hiired Axmed Guuleed oo kuwaas dhinac jooga garaadkii waa kan gudoomiyihii waa ka dambeeya silsiladii wanaga ka furnay waxa weeye waxaanu cadeynaynaa in hawshaasi si goobnimo leh oo wanaagsan oo tuliimo ah oo taariikhi ah ay u dhacday waliba waxaan doonaynaa shalayto inta aan la aasin inaan xalay ka furno laakiin xaaladda adag awgeed iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa jaamacsiyaad oo ugu horeeyo garaadka iyo gudoomiyaha Allah idin barakeeyo kul jira aad baad u mahadsantihiin odaga Cali oo wiilkiisu dhintayna Ilaahay cawsheed qaba ugu bedelo sida ugu sharafta badan oo gobonimada ah wiilkiisa soo qabtay asaas ugu baa hawsha loo dhameyn doona hadii alla yiraahdo Sayid Ducaale dheegna si fiican buu yahay isagana Allah barakeeyo habeenkii markiiba uu ka hawl galay saacad kadib uu soo waday ma sha Allah barakeeyo waa kan hal qabto dadka qaar baad markay dadku wax sameeyaan fakiya ama si kale u fakera isagoo aad buu mahadsan yahay odagana cawl khayr qaba Allah cawl khayr oo dibka oo ku barwaaqo Allah qoyskan Allah barakeeyo aamin garaadka iyo gudoomiyaha iyo qoyska reer guuleed ama reer warsay ama jaamacada dhamaantood tolkina Allah idin ka dhigo aad baan idinku mahad celinaynaa wixii wanaaga oo reerkaan ku hagaajinayna anaga isugu noqono hadii alla yiraahdo samaantina way salaamayna arintuna saasay loo noqonaysaa magaalada khamrigaas soo galay hal waxay yihiin mid soo dhaawacay soo cadii mid xabad ku dabada namadii baan idhi xida saaka ku wareejinay aska fiilatay waa sheebeeyeen waxay xabsi baan u dhigaynaa waqti bahalkii halkaas ku maray kalbada garaadna waa ku raacsanaado qofka hadii inta yareen joogo qof wax dilo waa la soo qab saasa dadka loo helaya awal waxa loo rajiyaa ka heeb lagu dilayo dhankiisa garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac garaadka guud ee SSC ayaa dhankiisa bogaadiyay labada dhinac sida wanaagsan ay hawsha u soo dhameeyeen maanta guul weyn uu dareemayaa iyo farxad iyo rayn waanu ku faraxsanahay toonka sida quruxda badan ee xajada ay u soo dhaweeyeen dhameeyeen noola yimaadeen noo makhraati geliyeen alxamdulillaah rabbil caalamiin tolkii jira Allah idinka yeero tolkii jira Allah idinka yeero tolkii jira Allah idinka yeero wiilkii dhintayna Allah u naxariisto wiilkii dhintayna Allah u naxariisto dad sida dhulbaxanto sida ku soo dhameyn lahayd hawshu sida dad ku soo dhameyn lahayd inay jirto u malayn maayo gobonimaad muujiseen tolnimaad muujiseen hawsha taagan iyo culayska ina haystaad dareenteen oo ka falceliseen Allah idin roonaad waa noo roonaateen Allah idin roonaad guriga xaajada laga xaliyay waa iiga wacanta ilaahay ku reeta kale arrinka waa la qabaa garaajaan garaad Ismaaciil ka dhawaajiyay baaqa uu diray baanu la qabnaa ciddii waxaa samaysa waliba waxaanu samayn doonaa ciidamo ilaaliya insha Allah taala ciidamo isku dhafa oo barnaamijka ilaaliya oo kaantaraalada jooga oo waanu ognahay waa ilmaadigu waa in istaqaana cid kasta oo magaalada keenta waanu ognahay wixii
hawshaasi barnaamij dhabaanu ka samayn doonaa qofku gurigiisa inta loogu soo qabtay keenaya waxan lagaga hawlgalo insha allahu tacaala ta kale waxaa maanta caddaatay waxaan u malaynayaa 15 sano 17 sano